dumarka ta ugu khayr badan buu nabigu dhiwaatee waata marka uu ninkeygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi taabiciintii buu ahaa silata ibn ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad da'diisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nin adeer u ahbaa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasay ninka waa nin caabid u cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamkaa galoo maydha baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tahay orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylat zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosadu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu 2 rakaca uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa yaa haleelaba qola kaamera wadata ina haysatabe soo maahinde laa ilaaha illa allah wataan arkayna dhalinyar halkaa buuraha hoostooda taaganoo yaa leyti war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad moodaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii dheeraanayaan dhaqanka islaamka leylat zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa 2 rakacay iyuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay